إحنا أصحابتا xaqaliga aa kusoo dhawaada barnaamijkeeni isbuuclaha ahaa ee falanqeynta ciyaaraha. Isbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa oo aan ku jeexjeexi doonaa qodobkii ahaa xulkeena qaranka under 17ka 17 jirida da'yarta muddana ku xareysnaa tababarna ku sameynayay magaalada Muqdisho oo si heer sare ah loogu sagootiyay garoonka aadan cadde Airport. Xulkeena qaranka under 17ka runtii diyaar garowgeeda aad iyo aad u balaarnaa aadna u wanaagsanaa oo qorshiisana uu lahaa macallinkii ugu horeeyay ee kusoo guuleysta koobka under 17ka ee Sakafa macallin Nuur Amiin iyo staafkiisa la shaqeynayay oo waqti badan bixiyeen qorshe cajiib ahna samaysteen ayagoo bisha Ramadaan ku xareysnaa saaro u sheegna garoonka jaamacadaha tababarna ku sameynayay ayagoo iskugu diyaarinaya ka qaybgalka under 17ka ee Kafa Africom. runtii diyaar garow aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa oo meelo badan ay iskugu jiraan dhinaca jirka oo fiiskaaliga ah, dhinaca tikniiga oo farsamadii iyo dhinaca xeelada tacticadii ahaa qaabkii loo ciyaaray difaaca, qaabka weerarka, sidii loo ciyaaro team organizingka koox ahaan sidii la iskugu habeeyo. runtii tababarka ay sameynayeen tababar cajiib ayuu ahaa, diyaar garow aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa. waxaan aad u fududeynayay inay xaroodaan ciyaartooydaasi ay helaan keerkoodii waxyaalihii ay u baahnaayeen. waa dareemi kartaa bil Ramadaan tababar la sameynayo qofkii sooman iyo dhiirigelinta maamulka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo ugu horeeyay gudoomiye Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino oo runtii ah nin jecel horumarka iyo wanaagga oo wax kastana tusaale iyo daliil ay u yihiin qaabka uu soo shaqeeyay iyo qaabka uu u shaqeynayo, sida uu jecel yahay horumarka iyo isku xirka, isku haynta, isku keenta. maasha Allah wax badan u kulmay darteeda waan rajeynaynaa insha Allah. macallimiinta macallin Nuur Amiin Maxamed oo runtii macallin aad iyo aad waay arag u ah, khibrad fiican leh, dadaal badan juhd badan bixiyay, ciyaartooyda aad iyo aad u faraxsan shaqadii loo diray wixii loo idmaday si fiican u qabanaya. waxaa kaloo jira in ciyaartooy kale ay ka imaanayaan, ciyaartooyda kale imaanaya ajnabi ma waa Soomaali waa maxaa yeelay national teamka qaranka qof kasta oo Soomaali ama muwaadin xaq ayuu u leeyahay meel kasta uu joogo. maxaa yeelay national teamka qaranka Soomaaliya meel kasta adduunyada ay ka joogaan ayay xaq u leeyihiin. way dadkaas imaanaya iyo kuwa inta laga wada kulli Sam waa Soomaali. hawshan waxay u taalaa macallin Nuur Amiin Maxamed maxaa yeelay shaqo qabanaa tababaruu siinaa waa diyaar garowaa yaa hadda wasaan ognahay ciyaartooydaas ayagna Ethiopia imaanayaan waxay ku marayaan maxaa la dhahay MRL oo lagu fiirinayo qalabkii maartay da'da ciyaartooyga inuu jiro inuusan jirin. insha Allah waan rajeynaynaa ciyaartooydeena inay shuruudaas buuxin doonaan insha Allah. waan rajeynaynaa kadib tababarkooda meesha ay ku sameysanayaan waxay jaanis u heli doonaan ka hor bilaabashada ciyaarta 10 maalin ka hor inay tagaan dalka Algeria sida uu noo sheegay ama aan ka maqalnay gudoomiyaheena xiriirka Soomaaliya kubadda. waxaan rabaa muddo wasiir bilina diiba yiraahdo halkan kama baxaya 26 ciyaartooy oo kamid ah ciyaartooyda tababarada shan ciyaartooy waxay ka imaanaysaa waddanka dibadiisa 31 ciyaartooy haddii Ilaahay yiraahdo waxaan noo saarnay horey waa u saarnay anagoo wasaaradda dowladda wasaaradda caafimaadka laga shaqeynaa marka 22 ciyaartooy ayaa gudbi doonta Algeria haddii
الله يلاهو مدن وزير مركز قرشها سفر بالسرعة سبعة دونا وحنا وعينا نمهد على وزير وزارة الأمنية الاستواتية وزير الدولة أمنية دمان أنت غير قارتين وعلى وعلى لنا وشيء وبركات في الوزارة وبركات وأمضية والوعيا ما له أي بركات ومخبأ ولا قوة ضايقة كعنك يقول خوانيتي وعكرون وعينا وبيشيء سفر كبعة يا محمد حلوة وزارة وزارة وحكومة أيضا وعلي شيء من أمريكا إن الدولة دي إنه يقدر كأنها وأعتقد جلس من تبتن ك توتال إنجين أفريكان كاف أنا 17 سيروا وشير وسير حياة وحنمثلنا برا برطمان أفريقيا أنا في السودان سود السودان وعلمنا أمريكا إن الناس عن كذا نقول أنا يا تقول يا دمان مدة سومالي كوكاسون وعن جيلنا إن نقول كين دون هذه الأيام سجالي لواتن كبيش وعن عارف دون نيجيريا لما بيش وعن عارف دون السنغال شن كبيش وعن عارف الكونغو إلى يوم كيلو عن جيلنا إن نقول في هذا كين وعن مركز سواء أكثر الهرمون وحين نبدأ عند أنت هوتيل كأيام عليك كمرين إثيوبيا سلاس أيام كبرناي وحين مركبوه الرئيس حيسين وصمين دونا عيارتوي لأن كانت وقتنا في اللقاء كمدة حقوقنا حيسين تنعيها سبح دونا وحلقات هذا دونا شاشرها عندي دورتان العين أصيد دونا سيقولي وأنا مركبوه الرئيس الصومالي سلاس لقسم ليه وأكو أمانة مع شركة هرمون عيارتوي الوحيد اللي عيارتوي أجوب الجوكتا وحاجة أولى إن حيسين سميان ملايين عينك سميان وحن وصلنا شركة لها هي دفع صومالية إن كبد عشرة المال بشران ما دام المراحل قرن كانوا يجونا كوها وحن وصلنا إن المال بشران عيارتوي حيسين سميان بيهجليان sida marka aan 29 ka ciyaari doono Algeria shaashada amar waxa laga daawan doonaa ciyaartoy kamid ah kuwa qaranka sanadkiinka oo xayeysiin sameyn doona taasna waa horumar noo tahay waxaan ugu saarayaa 5 maalin ka hor ayaa Algeria ugu saaraya ayuu la gaarin haddii ciyaartoyda daan laga sheego xoolaha ma qurux badna annaga waxaan ku talagalnay 32daas ciyaartoy 22 kamid ah dhacaysa 10 haddii ama ay dhacaan أما إن لا حفظ في عين ولا سوء عليا استاذنا عنه وطلقنا إن الكوحة ولا هنو يأتي بدك إيمان يسنا وعندنا وقت هرب وحنما لنا ذلك ولا عنا الجيريا أنه برالي قدوميه الدساهي إنه تونا مال أو بيرا نصيو وحندينا سجانة تونا كنا كبحنا أديس أن هلنا تونا مال أو بيرا ما دام عملا أي وحكستا الجيران waxaa markasta la socod doontiin kooxda la socotiin wiyaara oo maalin kasta tababarkooda dalka soo tirin doona iyo xaaladda meesha ay marayso taasna waa shaqo kaaf waxa loo baahan yahay waxa la socdo dhakhtar waxa la socdo duuge intaasna waa shaqo lagu soo kordhiyay dhammaantoodna xiriirka waddanka Soomaaliya asagoo dawladdiisa la kaashanayo oo ku talagalay inuu daboolo mudane wasiir waxaan ku soo dhaweynaa xafladda si loo gudaanado waxaan rajaynayaa in guul keeni doono hadii la yaraado